السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلامي أخيرتك وحرم كبر ميديا بسو دوالة كبر ميديا goobta quruxda badneyd aad uga barateen qisooyinka jacaylka iyo barnaamijyada kale oo xiiso geliya. Aanu gudagalno barnaamijkan waxay la wadaagtay Caaisho waxay ku nooshahay wadanka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Haddaba waa tuma Caaisho se maxaa ka taqaanaa nolosheeda gaarka ah? Haddaba daawade ma jeceshahay in aad Caaisho barato nolosheeda gaarka ah isna ma xiisaysaa? barnaamijkeenu waa sida qisada tan la magac baxday Hiigsi iyo Himilo. Caaisho waa gabar aad u da'yar, aad u furfuran, aad u dhoola cadeyn badan, aadna u qalbi wanaagsan. Qofka hal maalin arkaana uu jeclaado la jooggeeda, xataa gabar ha ahaatee. Caaisho waxay jeceshahay saaxiibtinimada, waxaana qadarisaa saaxiibtinimada. Caaisho waxay oranaysaa muddo laga joogo 2 sano ka hor waxaan isbaranay wiil, waxaana noqonay 2 qof oo ka wada hadla arrimo xiriir quseeya. Ugu dambeyn waan ku guuleysanay oo waxaan noqonay 2 qof oo xiriir leh, isna jecel weliba si dhab ah. waxaanan yeeshay hiigsi iyo himilo, halka aan ka hiigsanayo qof iiga ballan qaaday inaan noqon doono marwadiis, halka aan mar walba ka milaysanayo qofkii qalbigayga ku yeeshay qasriga. Aniga oon wax aqoona u lahayn jacaylka ayaa wuxuu i baray jacaylka micnihiisa. Anigoo aan lahayn hiigsi dhaafsiisan nolol maalmeedkayga ayaa wuxuu i baray hiigsi ka mid ah mustaqbalkayga. Anas waxaan jeclaaday jacayl aanu qof bilaadanay qof jeclayn. Anigoo og inaanu nahay 2 qof oo sheeko wadaag ah ayaa waxaan ka soo qaaday sawjkayga. Taasina waxay calaamad u tahay jacaylka aan jeclahay heer ilaa inta uu gaarsiisan yahay. Anas wuxuu igula noolaa magaalada Hargeysa, waxaanan xiriir leenahay muddo 2 sano ah. Anas maalin maalmaha ka mid ah uu i soo wacay, waxaan igu dhahay Caaisho waxaan rabaa inaan kulanno. Aniga kama aansan diidin, waayo waxaan ahaa qof xiiseynaysa la jooggiisa. Haddaba Anas wuxuu ii waday sawirayskaasoo ahaa hadal igu sameeyey hoos u dhacweyn. Anas wuxuu igu dhahay Caaisho waxaan rabaa inaan ka tago wadanka, aanan aado wadanka Mareykanka. Markuu sii baxayay wuxuu i dhahay Caaisho niyadda khayr u sheeg, adiga isdhihin wuu ku ilaawayaa, ma soo xasuusan doono. Haddaba aniga naftayda ayaa run ii sheegaysay. Anas wuxuu noqday mid i ilaawa, mid qiimahayga garan waaya, mid aanan weligayga is aqoonin, halkaan aniga ka ahaa mid tabaysa una ooman hadalkiisa. Fariimahaan u diro waa la fiirin, waana la iska dhaafayaa. Bushqad taan u dirana waa la fiirinayaa, waana la iska dhaafayaa. Kool ma layga qabanayo, codadkayga waa la dhageysanayaa, mana laga soo jawaabayo. Markaas ka bacdi waxa ii bilaabmay murug, warwar, isla hadal, isku buuq. Waxaan noqday naf madluuman. Ugu dambeyn waa go'aankii ugu dambeeyay ee niyaddayda iyo naftayda ay qaadato. Waxaan go'aansaday Anas halka uu joogo inaan ka dhawaado. Waxaan maray rafaad, dhib aad u xanuun badan. Waxaanan maray tahriib, dil, kufsi, jirdil iyo dhibaatooyin kale oo fara badan si aan ugu dhawaado Anas, ama aan hal mar u arko wejigiisa, una kala ogaado inuu caafimaad qabo iyo in kale. Ugu dambeyn aniga halkii aan rabay waan gaaray. Waxaanan ogaaday nolosha Anas oo aniga iga qarsoonayd iyo xaqiiqada dhabtii waxay tahay. Anas wuxuu yahay nin xaasla ah, halkan aniga ka ahay gabar inanimadeedu u weyday, nafteeduna halis u gelisay si ay uga soo agdhawaato ama ay ula kulanto Anas. Haddaba Anas waa xaas leh, aabbo ku faraxsan awlaaddiisa iyo xaaskiisa. Markaa ka bacdi aniga waxaan go'aansaday Anas noloshiisa inaan faraha ka qaado. Hay faraxsanaado, hana noqdo mid farxad ku waara. Ugu dambeyn aniga waxaan noqday qof ay cid walba isdiidaan, dadkii faraha badnaa iyo bulshadii faraha badneyd oon ku dhex jiray, oon la socon jiray
jeclaa saaxiibkooda, aan jeclaa la faraxooga, waxaan noqday mid ka qatan, waxaana noqday mid gooni ka taagan, anas adiga awgaa welibo. saasay tahay muddo laga joogo hadda ilaa 4 sano ayaa ka soo wareegatay xiriirkayagii, waxaana rabaa halkanna hal mid ka dhaho, anas waa ku jeclahay. haddii uu wanaagaagu bato, bini'aadamku waxay raadiyaan ceebtaada. waa ku jeclahay waa filim ku bilaabmaa eray khiyaano ah ama daacad ah. sidaa ceebta u dhibsato xiriirkayagii, waxaana rabaa halkanna hal mid ka dhaho, anas waa ku jeclahay. haddii uu wanaagaagu bato, bini'aadamku waxay raadiyaan ceebtaada. waa ku jeclahay waa filim ku bilaabmaa eray khiyaano ah ama daacad ah. sidaa ceebta u dhibsato, waxaa jira dadka qaar inay kuu dhibsanayaan. dadku qofka miskiinka ah way caynayaan, haddana way ammaanayaan. qof kasta ha u malaynin siduu ahaa inuu yahay weli. waqti qaadarka la joogo, haddii aad qof ku tiraahdo waan ku jeclahay, wuxuu u maleeyaa inaad khiyaamayso. laakiin hal mid, qofku jecel sida loo helaa way adag tahay, laakiin qofku dhaawaca sida loo helaa aad ayay u fudud tahay. haddaba saaxiib, nolosha ayaaba iska sidana, adduunkuna waa jaranjaro aad u dheer, welina aan laguna waarahaynin. saaxiib, weli miyaad la kulantay qiso sida noocan oo kalea? haddii ay jawaabtaadu tahay haa, fadlan nala soo xiriir, kana dhiibo raygaaga Gabar Media una sheega dhibtaada. hohay ruux humano jacaylku intuu hirdiyey haraatiyey baan lahe sideen uga hawlgalaaho ileen ruux humano jacaylku intuu hirdiyey haraatiyey baan lahe sideen uga